بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أما بعد. إن شاء الله جل وعلا waxaan galabta ka hadli doonaa kelmadeenina ku saabsan tahay baab aada muhiim u ah oo min abwaabi diin ka mid ah. baabkaasna waxaa weeye waa baab fiqhu ducaa. wax kasto oo diinteenna waxaa weeye ka mid ah waxay leeyihiin fiqhi oo qofka muslimka uu u baahan yahay waxaa weeye inuu fahmo, sida waxaa weeye siyaamka iyo salaada iyo cibaadaadka oo dhan fiqi ay u leeyihiin ayuu waxaa weeye cibaadadana u leedahay fiqi. saas darteedu nebiga wuxuu yidhaha sala allahu calayh wasalam, man yurid illaahu bihi khayran yufaqihhu fi ddiin. diinta qofku ilaahay subxaanahu wa tacaala la doono inuu khayr siiyo diinta ayuu fahamsiiya ayuu yidhahda nebiga sala allahu calayhi wasalam. waxaa ka mid ah fahamkaas marka inaad fahamtid muxuu ahaa ducada. lidaalika waxaa jira dad badan oo su-aal isweydiiyo dhaha limaada nadcu allaha subxaanahu jala wacala walaa yustajaabu lana. waayo ilaahay u baryaynaa subxaanahu jala wacala oo ducadana muxuu ahaa noolagu ajiibeynin. sabab su-aal aada muhiim ah oo waxaa weeye qof kasta oo muslim ah inuu fahmo loo baahan yahay way su-aashaas. waayo aniga ilaahay u baryayaa mar kasto ducadan aan liiga aqbalaynin, sababtoo ducada waxay u baahan tahay alfiqh walfahm, inuu qofka fahmo oo si fiican u fahmo ayaa u baahan yahay, siduu waxaa weeye su-aashaas ay ugu dhaadhacdo jawaabteeda si fiican. روى إمام أحمد في مسنده من حديث أبي سعيد الخدري وصححه الشيخ الألباني رحمه الله. إمام أحمد وحو مسند كيسو كسو صاري الشيخ الألباني المستحيحي حديث ورنعي أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، وحي هذا النبي صلى الله عليه وسلم، ما من مسلمين قف مسلم مجره يدعو بدعوة أو دعوة بريا إلهي سبحانه وتعالى أو إلهي بريا أو إلهي وحوي دي سنة إلهي وحوري سنة إلا يعني ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم. واحد ذنبي دعدسكم السجنة إيه قطيعة الرحم، الرحم جوزكم السجن دعدس إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث. دعدس أوبريو إلى هذي النبي صلى الله عليه وسلم قفكم مسلم كا أو إلهي أكبريو دعدسين كجرين محوها وح إثني والدنبيا إيوق قراب جوزني كجرين إلا إلهي سبحانه جل وعلا وحوسية إلى النبي صلى الله عليه وسلم بإحدى ثلاث. سدح midkood ayuu allah subxaanahu wa tacaala kuu siinaya. taasna waxaa weeye waa waxyaalaha u baahan inuu qofka muslimka uu fahmo weye. waa baabka koowaad oo ka mid ah min abwaabi alfiqhi fi dducaa, inuu qofka ducada fahmo ayay ka mid tahay. midda koowaad waxaa weeye ima an yucajila lahu, wuxuu yidhahda nebiga sala allahu calayh wasalam, fi dunya waxaa يعني midda koowaad waa inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala ducadii uu qofkii baryay adduunka ugu soo dedejiyo oo uu siiyo wuxuu ilaahay weydiistay subxaanahu jala wacala. wa hada khayrun cadiim, waa khayr aada u weyn. ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaa weydiisatay inuu ku siiyo oo waxa aada u weyn waayo, waa khayr badan wey. taas marka waa fiqiga koowaad oo qofka muslimka u baahan yahay inuu fahmo. waxayna la socotaa su-aashii limaada adcuu walaa yustajaabu lii.
waayo aniga ilaahay subxaanahu wa tacaala ana u baryayaa oo aanan lii ajiibaynin ducadaynan lii aqbalaynin saas siday kaaga baxdo waa inaad fahamtid waxa weeye fiqhiga ducada ee leedahay haddaa ilaahay baridid sida xadiiskan ku cad saddex midkood uu allah subxaanahu wa tacaala ku siinaya midda koowaad waxa weeye inuu ilaahay adduunku kugu siiyo ama yani an yucajila lahu fi dunya adduunyada in loogu soo dedejiyo oo wuxuu waxaa weeye ilaahay weydiistay subxaanahu wa tacaala uu siiyo wa ima an yudakhirahaa lahu midda labaad oo markaa allah subxaanahu jala wacalaa baridid uu ku siinaayo waxaa dhici karto inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala keed kugu dhigo fi laakhira oo aakhirada markaad tegtid acmaashaada saalixa ah oo aadka u waweyn ilaahay subxaanahu wa tacaala uu kugu daro saas darteed aakhirada iyo adduunka isku mid maaha aakhirada ayaa weyn ilaahayna subxaanahu wa tacaala wuxuu kula doonayaa khayr aada u badan iyo meel aada u sarraysa ayuu allah subxaanahu jala wacala kula doonayaa wax walbo oo aa weydiisan jirtay adduunka ilaahay ku weydiisan jirtay ayuu wuxuu kugu dibdhigaya allah subxaanahu jala wacala fi laakhira aakhirada ayuu kugu dibdhigayaa markaas ayaa aada iyo aada ay ku farax gelinaysaa ducooyinkii aad samayn jirtay markaa aragtid markaasaa waxaad tamaninaysaa maxaa u badsan waaye ma garatay ducooyinkii badnaa oo adduunka aan samayn jiray maxaa aada u badsan waaye ayaa naftaada ku cataabaysa oo naftaada ku canaananaysaa oo naftaada ku eedeynaysaa qof walbana oo muslim ah yacni sayandam wuxuu ka shalaan doonaa muxuu aha markuu jannada galo acmaashii saalixa ahaa oo uu awoodi kari inuu sameeyo aadka u fududeed sidii ducadoo kale ay markuu arko muxuu ahaa ajirka uu ku helay iyo markuu arko muxuu ahaa dayaaca iyo waqtiga ka lumay markuu arko ayuu ka shalaynayaa ma garatay ducadaas ilaahay subxaanahu wa tacaala marka min fadlihi wa raxmatihi asaga ayaa og waxa salaaxa iyo wanaagga iyo khayrka uu kugu jiro ducadii aa ilaahay weydiisatay oo aad ka bariday allah subxaanahu jala wacala wuxuu kugu dibdhigayaa aakhirada markaasaa markaa aakhirada tegtid waxa aa baryi jirtay oo khayraad oo dhan halkaas ayay kugu sugayeen tan saddexaad oo allah subxaanahu jala wacala uu ku siinayo waxaa weeye oo qofku inuu fahmo u baahan yahay wa ima an yusrifa canhu yani bimiliha min assuu waa inuu allah subxaanahu wa tacaala xumaan iyo balaayo iyo dhibaato iyo mashaakil kugu imaan lahaa adiga naftaada kugu dhici lahayd ama ciyaalkaada ku dhici lahayd ama reerkaada ku dhici lahaa ama xoolahaada ku dhici lahaa ayuu allah subxaanahu jala wacala kaaga duwaayaa ducadii aad baryaysay ducada marka aad baryayno ama allah subxaanahu wa tacaala weydiisanayno marna dhulka kuma dhacayso midda koowaad waxaan dhahnay inuu ilaahay adduunka kugu siiyo oo ilaahay kuu soo dedejiyo subxaanahu wa tacaala ima inuu allah subxaanahu wa tacaala kuu keediyo oo meel kuu dhigo aakhirada lagu siiyo ima inuu ilaahay subxaanahu jala wacala dhibaato kugu soo socotay kaaga duwo oo kaaga leexiyo yaana og allah subxaanahu wa tacaala waxyaalo aada u badan oo nagu soo degi lahaa ilaahay subxaanahu wa tacaala uu noogu leexiyo bisababi ducaa ducooyinka aan baryayna darteed ayuu allah subxaanahu jala wacala nooga leexinaya amraad waxaa jirto oo cudurro khatar ah oo dadka ku dhaco allah subxaanahu wa tacaala waxaa laga yaabaa cudur inuu kugu dhici lahaa xun oo naftaada iyo noloshaada khatar gelin lahaa oo ilaahay subxaanahu wa tacaala kaa leexiyo bisababi dacawaatin anta dacawta biha sabab yacni ducooyinka aa ku bariday allah subxaanahu wa tacaala uu kaaga leexiye waxaad dhici karto adigoo gaarigaada wadato inaad shil xun ama dhibaato xun la kulmi lahayd allah subxaanahu wa tacaala bisababi dacwatin dacawta biha sabab waxaa weeye bariday ducaa bariday darteed ayuu allah subxaanahu wa tacaala dhibkii kugu dhici lahaa waxaa weeye uu kaaga celinaya subxaana allah waa wax aada u qiimo badan oo qofka muslimka ah inuu baryo allah subxaanahu wa tacaala ku dhiirigelinaysa habeen iimaanin waana waxa muhiimka ah oo qofka muslimka u baahan yahay maca dalika ana ducaa waxa weeye waa cibaadatun min alcibaadaat waxay ka mid tahay cibaadooyinka allah subxaanahu jala wacala loogu dhowaado ay ka mid tahay iyadoo ay saas tahay
ayaan waxaa haddana u baahannahay habeen imaanin inuu qofka muslimka ka dhigto dhaqankiisa joogtada ah inuu ilaahay subxaanahu jalla wacalaa baryo sababtoo baryada aad baryaysid wax weyn ayay kuu samaynaysaa yacni waa lagu ajiibaya ducadaadi waa helaysaa ama dhibaataa lagaaga leexinaya ama ilaahay aakhirada ayuu waxaa weeye kugu dibdhigaya waxaa kaloo jirto aada muhiim ah waxaa laga yaabaa ducada hadda aad baryaysid inuu ilaahay hadda waqtiga aad taagan tahay kuu ajiibin laakiin waxaa laga yaabaa nimcooyin aad helaysid risqi aad helaysaa ciyaalkaadu ilaahay kuu barakaynaya reerkaadu ilaahay kuu barakaynaya adigu ilaahay naftaada barakaynaya wuxuu ilaahay kuu furayaa waddooyin aad u bilaaran oo ay ka mid tahay caafimaadka muxuu ahaa iyo raaxatulbaal inaad dareemaysid waxaa weeye xasiloon iyo sakiina iyo tumaaniina aad dareemaysid iyo ilaahay subxaanahu wa tacaala uu kuu furaya waxaa laga yaabaa 20 sano ka hor ducooyin aad bariday inuu ilaahay kuu ajiibo yacni bacda 20 caaman 20 sano kadib inuu ilaahay ducadii kuu aqbalo 10 sano ka hor ducooyin aad ilaahay ku baryaysay ayaa waxaa laga yaabaa inuu ilaahay ku sii ducooyinka hadda ku aqbalo ramadaanka hadda aan ku jirno kii ka horreeyey ducooyin ilaahay subxaanahu jalla wacalaa aad bariday oo aad weydiisatay ayaa waxaa weeye ramadaankan laga yaabaa inuu ilaahay kuu aqbalo kuu ajiibo marna marka ducadaada dhulka kuma dhacaysa imaa an yustajaaba laka fi lxaal waqtiga aad taagan tahay inuu ilaahay kuu ajiibo ducadii imaa waxaa weeye in muxuu ahaa lagu dibdhigo sana ama bilooyin ama muxuu ahaa sanawaad markaa kadibna ilaahay subxaanahu wa tacaala ducadaadii uu aqbalo ayaa waxaa weeye iidana u baahan tahay inaad fahamtid marna marka ducada aad baryaysid dhulka kuma dhacaysa saddexdaas shay waxaa weeye waa saddexda shay ugu muhiimsan oo ka mid ah muxuu ahaa fiqhi ducaa culammada islaamka marka fiqhi ducaa aad ayay uga hadleen wax aad u badan ayayna ka hadleen markuu nebiga sala allahu calayhi wasalam saxaabada u sheegay arrinkaas inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala ducadii uu ku ajiibaya hadda ha lagu siiyo ama bilooyin kadib ha lagu siiyo ama sanawaad kadib ha lagu siiyo laakiin ducadii aad bariday lagu yeelaayo ama muxuu ah aakhiradii lagugu dibdhigaayo ama dhibaato kugu soo degi lahayd oo awoodna aan u lahayn muxuu ah inaan iska celinno ama aan iska qaadna dhibkeeda ama diyaar aan u hayno aan u gegsan karin oo ilaahay kaaga celinayo markaa intaa saxaabada u sheegay waxay dhaheen saxaabadii idan nukthir haddeeba saas tahay arrinku oo ducada kheyrkaas oo badanba ay leedahay waxay dhaheen waa inaan badinno ducadiisa aan ilaahay u baryayno nebiga wuxuu yidhahdee allahu akthar allahna subxaanahu jalla wacalaa markaad ducada badisid asagana khayrka ku siin lahaa uu ku sii badinaya saas darteed ayuu qofka muslimka ah markuu maqlo wax khayr waxaa weeye u ah inuu muxuu ahaa ku degdego oo qalbigiisa diyaar u noqdo oo isla markiina go-aan qaato oo u dhaha aniguna muxuu ahaa waan yeelaya waa samaynaya wey sababtoo wax walba aad maqlaysid waa inaad muxuu ahaa isku daydid inaad samaysid isla markiiba ma garatay haddaa awoodi kartid ducadana waa wax aada u fudud waqti kaama qaadanayso teem kaama qaadanayso adoo gaari wadidaad akhrin kartaa adoo sariirtaada waxa way ku jifta ayaan akhrin kartaa wayse uma baahno wax ay u baahan tahay ma jirto inaad qiblo u jeesatid uma baahno inkastoo culamada qaarkood ay ka hadleen laakiin waa min baab alistixbaab faqad waajib kuguma aha inaad qiblada u jeesatid adoo meel kasta joogtid adoo jikadaada ku jirtid adoo muxuu ahaa shaqadaada ku jirtid ayaa maanta oo dhan samayn kartaa ducada marka waa wax aad iyo aad u qiimo badan ilaahay agtiisana subxaanahu wa tacaala waxay ka tahay waxyaalaha aadka u waaweyn oo allah loogu dhawaada subxaanahu jalla wacalaa ducadana waxay ka mid tahay min acmaali saalixa acmaasha wan wanaagsan oo allah subxaanahu wa tacaala nagu dhowaano ayaa waxay ka mid tahay ducooyinka waa wax aad u qiimo badan waa camal saalix ah waa abaabu lkhayr wa cibaada qofkii loo furo albaabkaasna waxaa loo furay albaab aad u weyn ayuu allah subxaanahu jalla wacalaa ayuu u furay ilaahina subxaanahu jalla wacalaa wuxuu yidhi walaa yudiicu ajra man axsana camalan ilaahay subxaanahu wa tacaala ma dayacayo qofkii muxuu ahaa camal wanaagsan sameeyo ducada waa camal wanaagsan allah subxaanahu jalla wacalaa kaama dayacayo ducadii waxaa weeye oo allah weydiisatay subxaanahu jalla wacalaa waxaa laga wariyey imaam abu hurayra رضي الله عنه وأرضاه إنه يرهدي
ما أخاف أني كما بقى يرهذي أن أحرم وحاوي الإجابة إجابة إن لي حرمه أو لي أجاب يعني لي أقبل ويدعو ذي بغتان إذا ما هي سوير هذي سببته وحو هذي هذا النبي صلى الله عليه وسلم لكني وحير هذي أخاف وعن كبقايا أن أحرم الدعاء دعاء إن لي حرمه والباب كدعاء دنب لي حره وأنا يعني مصائبته وين أي كمتهاي واحد جردد إن بدن الله سبحانه وتعالى بريو مركو عبار بدن بريو وهسي يكسل أي كدعاء دعاء دنبو اسكدينا سبحان الله وحي كمتهاي مركا الرمضاس من أبواب وحوي الخذلان إن قرب هذا لقب حي أو الشيطان وحوي وكوقف صدي أي على مضوء تهرينكاس وإن النفط هذا مركب محوها هل يشد أو دب أسرع لسد وح أسمين جرتي أو دعاء يوحكستو أسمين جرتي أو خيرة وإن دب أسرع لسد هدوم محوها شيطان كوحوي أرنكاس قلبي قاعد بقليه ابن حجر عليه رحمة الله وحليه هاي السجنة قفك الدعاء ولو أجيبها يا جيراني لكن تتنوع الإجابة دعوين كم حوها ولو أجيبها لكن إجابته ويكلد وانتهي واحد دعي كرته مركا قاركود إن شيء إلهي ويدسنيسي سبحانه جل وعلا شيء ويدسنيسي بعينه أساق نفتي سلوك مسيناي لكن شيء أساق أدقمه أو أساق كقيمة بضن أما أساق أدقمه أي إلهي كسيناي سبحانه جل وعلا لأنه الله سبحانه وتعالى أي أب وحا خيرك وكوجره مقرته وحا خيرك وكوجره أساق أياه أساقنا محوها التوفيق ذا كسيناي مرة قاركود وحا أغانيسا وحيالا نيادة آد وجعلك أو نفط هذا آد ومشغول السي أو نفط هذا يكون شيء أو لعق وقتي نف عافمات كذا أكون بحسي أو نفط هذا خطر وجلسي دب وحا كأغانيسا وحاس إننا خير كوجرين دور سنة كذب أما 8 سنة كذب أما 5 سنة كذب أما سنة كذب وحا أغانيسا إنه وحا خير كوجرين هدو إلهي مركب كسين لها نفط هذا ديار وماهن دينت هذا ديار وماهن مركز حالة أكو جرتي إلهي سبحانه وتعالى مركب كمسين الدب أيو كوجو دقي وقت أذيك ديار وتاي ونفط هذا يحمل كرته أيو إلهي شيء كسينها يا بعينه شيء أبردي أما مد السجبة كون أكسن أيو الله سبحانه وتعالى كسينها يا سيدا استرتد آد مهم أي أوتاي إنه قفكم حوها فهمه فقه وحوي دعاء إلى هاي سيد الصلاة فقه أولاد هاي يصوم لو قبها إنه قفك وفهم شيء أفراد أو قفك مسلم مركو بريا الله سبحانه وتعالى إنه فهم لو بها وحوي الإلحاح وعدم اليأس إن إلهي سبحانه وتعالى بريا كوع العليسيد أو آد أو بريديد أو مرنا أنا قوسنين أرنكاس وحي كامتهاي من أعظم أسباب الإجابة الدعاء الرمضة أقوى وين أو الله سبحانه وتعالى دعينك وأقبله وحأبته نبي الله يعقوب عليه السلام مركو يوسف وايي ويلكي سكلم حا بنيامين وايي إما ساسنوا إلهي بريا سبحانه وتعالى إن بضن أي الله سبحانه وتعالى بريا إلا وحوي إنده أوبالي أو وحوي ويلشس وداعي فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون وحدها ولا ويلكي محوها يوسف ولا الكس بنيامين راذية أو ملكس كدا دير هنا قوسنين محوها إلهي رحمدي سهك قوسنين إلهي رحمدي سهك قوست إلا قف قال أي إلهي رحمدي سهك قوست أيكوير هذي وكذلك نبي الله أيوب عليه السلام كان يدعو الله 18 عاما سيدي 8 سنة أي إلهي بريا سبحانه وتعالى فاستجيب له دعائي سوى الله أقبله وهكمده نبي الله نوح عليه السلام كم كان يدعو الله سبحانه وتعالى 1000 سنة إلا 50 عاما كنت سنة أو لقجر محوها يعني كن سنة أو كنت سنة لقجر سقال بقول كنت سنة
أي نبي الله نوح عليه السلام بريء قوم كيسن إلهي أبو يراي دتك دعوة أبو يراي مع ذلك استجيب له دعوته. وكذلك نبي الله محمد عليه السلام لما وقع وحاوي في حديث الإفك أو سورة النور كشة كان يسمرك دعضي وحي قدامه ويستاغي. لماذا؟ سيدا وحاوي أبطان محوها الأفاكون dadka beenta sheego oo nabiga sallallahu alayhi wasallam reerkiisa waxa weeye ku been abuurtay oo been abuurka ka sameeyay inay muxuu ahaa dambigoodii waxa weeye sii wataan oo ay ku dheeraadaan darteed ayuu Allah subhanahu jalla wa ala waxyiga xataa u istaajiyay heer ay nabiga sallallahu alayhi wasallam saameyn aad u weyn ay ku yeeshatay naftiisa oo saxaabadii uu la tashtay hal ufaariquha yani xaaskeygi مفرع كمتجا مسوا هستا قارن واحد النبي هسه أنه واحد خير مو يوحكى لكم أوين قارن واحد فارقها اسكف فصح أي كلهن قارن هسه كلهن هيركاس مكي تكتي أو أرين تمحوها أدو عكرمتي أو دبات بدن محوها يعني أي ماشي قارتي أيو الله سبحانه وتعالى سودجي آيات بينات وحوي آيات أدو عد أو في سورة النور كجرته إلى يوم القيامة والآخرين يا تاسنا وحي عدينيسا ضدك محوها بين أبورك السميي الله سبحانه وتعالى بين أبورك ودي السدو وحوي أبوريي إيه ضدك مؤمنين إيه منافقين تسدو إلهي سبحانه جل وعلا أكل السوع وحامرك قفك مسلم كأوبا هاي إنه محوها الله سبحانه جل وعلا بريو أو كوع العليو تاسنا وحي تسينسا توفيق إنه إلهي كسيي أو مرنا أن قوسنين قف كان قوسنين يعني أو مرور بالصعودة يوشك أن يفتح له الباب كوحاوي يحو ياهي إلا فرق هذا ما أنت عندنا الباب قرعيسي أو صوح والباب قرعيسي أو قلب قرعيسي أو ماني قرعيسي الباب كمركي قدام بيسو ولا قفرايا مقرد لكن مركي وجوه الرئيس قرعديد هذا سكفل يستيد الباب كي عندك مفرس ساس درتين أيه وحلو بهاي إنه قفك دعوة كوع العليا ونمرنا وحاوية قوسنين نبي قال وحي صلى الله عليه وسلم يستجاب للعبد ما لم يستعجل قفك الدونك إلهي سبحانه وتعالى يقفك مسلم دعوة إلهي وحي هذا وكأقبل يا انتو وحاوية دقدقين قيل يا رسول الله نبي وحا لو ويديي ما استعجال كم حاوي إنه وحاوي هذا النبي صلى الله عليه وسلم إنه قفك ده قد دعوت فدعوت فلم يستجب لي إلهي وان بريي من اللي أجيب ثم يترك الدعاء مركا كدبنا دعوي وكتجايا يبريد وسمنجري وهذا من الخذلان أيضا وحي كمتا أرمادا آدك خطرك أو الباب الشيطان ككمده وسوسة الشيطان هي تلبيس إبليس أي أرنكاس كمتاي سببت أصلا نفتي قوة سواسين هاي محاو بريسي ماني والبوا بريسي يعني 8 سنة إلهي بريسي 5 سنة إلهي بريسي 14 سنة إلهي بريسي هل رأيت وحاوي دعاء يعني استجيب لك ما رحت ولقى الدعاء محوها لو أجيبي شيطان كيقول حسو قفك كو آخرين تاس مركو كو آخرية والنفط هذا أعبتي هداني هي سنين محوها فقه أو من الدعاء يفهم أنا كيه سنين فقه يعني الدعاء هدانا فهم كيه سنين وحكو دعاء مقرتي اليأس والقنوط إنا محوها قوستي أو حاوية جوجي ست عدي إلهي كبري جرتي وحا سمين جرتي أوردن شيطان كان هلك وكاربي إنه كو قارسي هلكاس أي أهد ساس درتد أي إلهي سبحانه وتعالى وحي لدي قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إلهي رحمة ديسا هكاقو سنين إلى إلهي الضوامد وحوي الله الله يعني نفتو ذا كوحد قدبي أو الذنوب كستسمي أي إلهي وحولي هاي هكاقو سنين إلهي رحمة ديسا سبحانه وتعالى لماذا؟ لأنه يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم إلهي سبحانه وتعالى الدنبية دن أي دافا وأنا الرحيم سبحانه جل وعلا فما بالك مركا أذيك وبريسيد الله سبحانه وتعالى وكو أجيبها
laakiin waa inaad fahamsantahay oo haysatid fiqigaas muxuu ahaa sayna kugu dhicin muxuu ahaa arrinka noocaas oo kale shaydaankana waxaa weeye qalbigaada waxaa weeye waxaa ku akhrin arrinkaas ayuu qofkii muslimka u baahan yahay arrinka shanaad oo qofka muslimka u baahan yahay oo ka mid yahay yani min baab alfiqh fi adducaa waxa weeye xusnu dhanni billahi subxaanahu jala wacala malo wanaagsan inaa ilaahay subxaanahu watacaala ku qabtid sababtoo ah malada wanaagsan waxay ka mid tahay aydan min acdami asbaabi waxaa weeye ijaabat addacawaat asbaabta ugu waaweyn oo ducooyinka lagu aqbalo waxaa weeye inaa ilaahay malo wanaagsan ku haysatid oo aa yani yaqiinsan tahay inuu ilaahay waxaa ka bariday uu ku siinayo sababtoo ilaahay subxaanahu watacaala yanduru ila alquluub ilaahay wuxuu fiiriyaa qalbiga markaa baryaysid intaana baryin ka horo allah wuu ogyahay subxaanahu watacaala waxaa ku baryaysidna wuu ogyahay qalbigaada iyo maskaxdaada waxa ku wareeganayana ilaahay subxaanahu watacaala wuu ogyahay saas darteed ayuu nabigeena wuxuu nagu dhahay sala allahu calayhi wasalam udcu allaha wa antum muuqinuuna bilijaaba waxaa baridaan allah subxaanahu watacaala idanka waxaa weeye yaqiinsan inaa ilaahay idiin ajiibayo ayuu nabiga yidhahda subxaanahu sala allahu calayhi wasalam annaga ayuu arrinkayna baraya nabiga sala allahu calayhi wasalam markaas wuxuu nabiga ku daray waclamuu ana allaha laa yastajiibu waxaa weeye yacni ilaahay ducada uma aqbalu yidhaahday yacni ducaa'an min qalbin gaafilin laahin ilaahay subxaanahu watacaala uma ajiibo qof ducadiisa qofkaasoo waxaa weeye qalbigiisa uu maqan yahay oo ciyaar ku jiro oo wuxuu akhrinayo iyo wuxuu sheegaya aan la soconin laakiin gacmuhu kor iskaga taagaya afkana waxaa weeye wuu dhaqaajinaya kalimaad ayuu u dhahaya kaannamaa huwa naa'im sidii qof jiifoo hurdo oo riyoonaya koluu samaynaya taas nabiga sala allahu calayhi wasalam ayadanu nagu baraarujiyey yani wuxuu yidhahday ogaado oo meel dhigto allah subxaanahu watacaala qof baryadiisa ma aqbalo qalbigiisa maqan yahay oo ciyaaraya waa arrin aada muhiim ah inuu qofka muslimka arrinkaa waxaa weeye uu ku baraarugo markaa baryaysid allah subxaanahu watacaala waa inaad baridid adoo baryaysid oo joogo oo taagan oo allah subxaanahu watacaala muxuu ah waxaa weydiisanaysid og oo haddana yaqiinsan inuu ilaahay subxaanahu watacaala ku ajiibi doono intaas ayaan إن شاء الله جل وعلا كلمتي كسوق وقبينيا إلهي وحن كبرينا سبحانه وتعالى أن يفقهنا في ديننا إنه إلهي دينتنا وحاول نفهم سيه دعونا أن نقبله إلهي سبحانه جل وعلا وحن كبرينا إنه دنبجينا ضعفه يدنبج والدكين وحكستو وخير الدنيا خير آخرة إلهي كرجينا لنا الله سبحانه وتعالى وحن ويدسننا إنه نصيه واحد باته مشاكل كأن كبقينا الله سبحانه وتعالى وحاول سنين إنه وحاول دشينا كدو القاضة أفضل بو مسلمة أو حنون سنة إلهي وحن كبرينا سبحانه وتعالى إنه عافيه أو حاول دبات هذا حنون كإمارتك كقاضة لأنه بابك وبابك أقوين أو إلهي سبحانه وتعالى لقبريه سود دبات هذا كقاضة وأنا شيء أقوين أكسن أو قفك استو حنون سن أما عيد حنون سن هيستو لو بهاي إنه آدو بريه intaa waxaa weeye albaab cid kale tegi lahayd ama qof kale wax igu akhri ama ii soo ducay dhehi lahayd albaabkaada aduu ku furan yahay ilaahay bari subxaanahu watacaala ilaahayna uu ku ajiibayaa asagana hadalkaas dhahay udcuunii astajib lakum وبارك الله فيكم وجزاكم الله الخير وبارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته